السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سولو هذا دمانتين أصحابتا كوهران كابل تكنولوجي and language. إذا لهانتين كسولو هذا كابل تكنولوجي and language ميلكستا كسوغنتين. آدي هذا يعني دين سلامة يا waxaan idinku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. magacaygu waa Sharmarka Araale Jaamac. kusoo dhawaada cashka maanta oo aad iyo aad u xiiso badan. cashkana maanta wuxuu ku saabsan yahay laba mowduuc oo aan isleenahay labada mowduuc aad iyo aad ay u xiiso badan yihiin ayaan isleenahay insha Allah. موضوع وحكوسابسن yahay conversation about education. waa mowduuc aan kasoo sameynay waxbarashada oo wada sheekaysiga iyo conversation yaroo gaaban aan isagana kasoo sameynay ignorance-ga ama jaahilnimada aan kasoo sameynay. labada mowduuc ayaan rabnaa inaan xalqadeena aan ku qaadano oo aan ku qaada dhigno inagoo labadoodaba isbarbar dhignay. dhamaantiin waa ku mahadsantihiin daawashada casharada Kaabi Technology and Language. intiini nala socotay muddo hal sano ayaa noo buuxsamay oo uu channel ku jiray. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay ka faa'iideen malaayiin arday oo daafaha dunida ku sugan ay ka faa'iideen oo ay ka barteen luqadii Englishka ahayd. ilaa barbilow ilaa iyo bardhamaad ardaydii nala socotay dhamaantiin waan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad noola socoteen ilaa iyo maalintii. weli halkii ayaan kasii wadaynaa oo dadaalka halkii baan kasii ambaqaadaynaa oo ma sii kala goynayno. hadda waxaan kasoo hadalnay mowduuc ku saabsan waxbarashada iyo nidaamkeeda oo dhan iyo qeexidaheedii oo dhan ayaan kaga soo hadalnay. haddaana daawan fadlan soo daawo. mowduucan maanta waxaan rabnaa inaan waxbarashada aan kaga hadalno qofku suu isbedel u sameeyo maalin walba. waxbarasho saad wax u barato maalin walba isbedel samay, maalin walba waxbaro. maalintii laba kelmadood oo English hadaad barato waxay ka caawinayaan waxyaabo fara badan inaad markaa maxay tahay aad ku fahanto noloshaadana waxbay ka bedelayaan labada kelmadood ee aad barataa. marka maalin walba waa inaad naftaada aad wax ku soo kordhisaa. okay, aan isla bilowno cashkeena maanta ama cashkeenan caawa. conversation wada sheekaysi. conversation wada sheekaysi about ku saabsan education waxbarashada ku saabsan. waa dialogue wada sheekaysi aan doonayno inaan kaga hadalno. how are you feeling today? 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 sidee ayaad maanta maxaa dareemaysaa? how are you feeling today? sidee wax u dareemaysaa maanta? everything is very good. wax kasta way fiican yihiin. everything wax kasta is very good way fiican yihiin. kaalmada wada iyo adigu reply inaad ka jawaabto my question su'aashayda wida hadii ay anigu askaan ku weydiiyo iyo adiga one question su'aal hadaan ku weydiiyo can you reply with me? ma diga jawaabi kartaa? ereyga reply iyo ereyga answer iyo ereyga respond intuba waa jawaabid waana isku macne. how are you feeling today? everything is very good. can you reply my question with I ask you one question about education? ma iga jawaabi karaysaa haddii ay anigu askaan ku weydiiyo one question hal su'aal about ku saabsan education waxbarashada ku saabsan? can you reply with me? ma iga jawaabaysaa? maybe waa laga yaabaa. maybe laga yaabee if you have haddii aad hayso any questions wax su'aala oo about ku saabsan education waxbarashada waa laga yaabaa inaan kaaga jawaabo. maybe waa laga yaabaa if you have any question about education haddaad hayso wax su'aala oo ku saabsan maxay tahay waxbarashada. a iyo b ayaa cashkan oo kale su'aal iyo jawaab ayuu u dhacayaa sida laba arday oo su'aalo iyo jawaabo isweydaarsanaya. taasi waxay ku sahlaysaa inaad daily speaking fara badan oo fudud aad hesho si aad u develop garayso ama aad u horumariso waxa weeyaan luqadaadii aad u dhaqaajiso wax badan aad markaa u fahanto. waa inaad su'aalo iyo jawaabo fara badan aad heshaa. sidoo kale vocabulary-gi waa inaad si fiican isaga dhistaa. sidoo kale waa inaad isku daydaa inaad wax xifdido. okay, what is the education? waa maxay waxbarashadu? what is the education? waa maxay waxbarashadu? education waxbarashadu is waxa weeye the light waa iftiinka of the life ee nolosha. waxbarashadu waa iftiinka nolosha weeye. education is the light of the life. education is the light of the life. waxbarashadu waa iftiinka nolosha weeye.
What is the advantage waa maxay faa'iidooyinka of the education ee waxbarashada faa'iidooyinka waxbarashadu maxay yihiin what is the advantage of education waa maxay faa'iidooyinka waxbarashadu education waxbarashadu waxay leedahay uncountable advantages faa'iidooyin aan la tirin karinin ayay leedahay faa'iidooyinka waxbarashadu leedahay lama tirin karo also sidoo kale education waxbarashadu shows waxay tustaa the people dadka waxay tustaa correct way wadada saxda ayay tustaa waxbarashadu also sidoo kale education waxbarashadu shows waxay tustaa the people dadka the correct way wadada saxda without education waxbarasho la'aani without life waa nolol la'aan without education waxbarasho la'aani without life waa nolol la'aan weeye okay thanks for your good replying waad ku mahadsan tahay jawaab celintaada fiican waad ku mahadsan tahay casharka ayare wada sheekaysiga waxaan usoo qaadanay inaan kaga hadalno practice ku samayno waxbarashada how are you feeling today everything is very good can you reply my question with I ask you one question about education maybe if you have any question about education what is the education is the light of the life what is the advantage of education has uncountable advantage also education shows the people correct way without education without life thanks for your good replying iminka waxbarashadii ayaan maxay practice ku sameynay waxaan u gudbaynaa mowduuceenan kale oo ah isaguna conversation wada sheekaysi abood ku saabsan ignorance jaahilnimada ku saabsan wax badan ayaa laga soo hadlay jaahilnimo iyo waxbarasho farqiga u dhaxeeya iyo nidaamka waxay ku kala duwan yihiin mowduuc kale ayaan ka soo sameyn doonaa how is your mood my dear waa sidee maanta niyadaadu saaxiib qaali waa sidee maanta niyadaadu how is your mood today how is your mood my dear everything wax kasta is going on well waxa loo u socdaan sidii loogu talagalay everything is going well wax kasta waxay u socdaan sidii loogu talagalay kaan maada wadaayo adigu respond inaad ka jawaabto my very simple question su'aashayda aadka u sahalka oo abood ku saabsan ignorance jaahilnimada ku saabsan can you respond my very simple question about ignorance ma ka jawaabi kartaa su'aashayda aadka u fudud ee ku saabsan jaahilnimada ku saabsan of course dabcan release soda if you adigu aad hayso any question any logical question wax su'aalo macquul ah hadaad hayso oo abood ku saabsan ignorance jaahilnimada hadaad hayso wax su'aalo ku saabsan oo macquul ah release soda soo weydiin hadaad hayso wax su'aalo macquul ah ku saabsan jaahilnimada of course release if you have any logical question about ignorance okay my first question is what is the ignorance waa maxay jaahilnimadu hadda waxbarashadii baan ka hadlaynay iminkana waxaan ka hadli doonaa what is the ignorance waa maxay jaahilnimadu the ignorance jaahilnimadu is waxa weeye the first enemy waa cadowga koowaad of the human being ee bini'aadanka waa cadowga koowaad ee bini'aadanka weeye jaahilnimada waxa lagu qeexayaa the ignorance jaahilnimadu is waxa weeye the first enemy of the human being waa cadowga koowaad ee uu qofku leeyahay weeye okay what is the advantage waa maxay faa'iidada of the ignorance ee jaahilnimada faa'iidadeedu maxay tahay ignorance jaahilnimadu has not any advantage wax faa'iido ah oo ay leedahay haba yaraatee ma jirto maadaama aanay wax faa'iido ah lahayn maxaa kuu diidan inaad adigu marka aad wax barato maxaa kuu diidaya jaahilnimo wax ay faa'iido ay leedahay ma jirto laakiin maxaa adiga kuu diidan inaad wax barato jaahil yaa la dhahaa jaahil waxa la dhahaa qofka wax yaqaan waxna ay ka dhiman yihiin ayaa la yiraahdaa ignorant jaahil isaga ayaa la dhahaa marka haddii aanay wax faa'iido ah lahayn ba ignorance ay tahay has not any advantage aanay wax faa'iido ah lahayn waya you ignorant adigu waayo tahay ignorant jaahil waayo u tahay okay has not any advantage wax faa'iido ah malaha haddaba what is the ignorant waa maxay jaahilku ignorance jaahilnimo ignorant na waxa weeye waa jaahil ama ignorance jaahiliin dadka marka la oranayo waa ignorance ma la oranayo hadda
eragani waxa weeye waa ignorance jaahilnimada laftirkeedii weeye tanna waa ignorance jaahiliintii weeye what is the ignorance waa maxay jaahilku waa maxay ignorance jaahilku is waxa weeye the person waa qofka who kaasoo knows nothing aan waxba aqoonin ayaa la yiraahdaa qofkan waxba aqoonin ayaa la yiraahdaa ignorance jaahil ayaa la yiraahdaa ignorance jaahilnimadu is waxa weeye the person waa qofka who kaasoo knows nothing aan waxba aqoonin weeye jaahilnimadu okay see you again waynoyo aragti dambe kulan dambe hayno ahaato aan markaa dib ugu soo celino how's your mood my dear everything is going well can you respond my very simple question about ignorance of course release if you have any logical question about ignorance what is the ignorance is the first enemy of the human being what is the advantage of ignorance has not any advantage what's the ignorant is the person who knows nothing okay see you again waynoyo aragti dambe waxaan maleynayaa mowduucan inaad ka faa'iiday ayaan jeclahay fadlan waxaan ka codsanayaa inaanadsan kala bakhaylinin inaad ku samayso like fadlan walaal mowduucan haddaad wax ka faa'iiday like garay oo like ku samay sidoo kale channelkana soo follow garay oo soo subscribe garay Facebook iyo YouTube labadaba kaad nagala socoto waad ku mahadsantahay daawashada casharada Kaabe Technology and Language fadlan mowduuca waxaad ku samaysaa subscribe ku samay sidoo kale channelkana naga soo follow garay sidoo kale channelkana subscribe ku samay sidoo kale Facebookna naga soo follow garay waad ku mahadsantahay casharada Kaabe Technology and Language sidoo kale hadaad u baahan tahay English basic level oo ka kooban taasoo 10 malaayiin ah oo si dheeriida ah loo qaato waad nagu soo biiri kartaa Kaabe Technology and Language sidoo kale English normal courses ayaan bixinaa oo iyadana groups ah oo aan online ku bixinaa sidoo kale English advanced level ayaan iyadana maxay qaab online ku bixinaa buug kasta iyo course-kaagii oo dhameystiran ayaa farta laga saarayaa xiisadii waxaad u qaadanaysaa si maalinle ah dhammaan videos-koodana hal mar ayaa lagu soo wada diri doonaa meel kastaad ku sugan tahay waad ka soo qayb geli kartaa sidoo kale buugtiisa iyo casharada Kaabe Technology and Language dhammaantood waad daawan kartaa waadna la socon kartaa waad ku mahadsantahay mowduuca maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wixii aad su'aal hayso commentiga ayaad igula soo wadaagi doontaa idin ilaahay intaan mowduuca xiga isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh